muddo jahwareer siyaasadeed oo ka taagnaa kadib gobolka Hiiraan markii lagu heshiiyay gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee Hirshabelle Muuse Salaad Weheliye iyo saraakiil kale oo gobolka ka tirsan waxay aadeen furmaha dagaalka si loo sii wado dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab. Hirshabelle oo hadda ku shaqeynaysa gobolka Hiiraan kadib markii dadaal nabadeed iyo dib u heshiisiin gobolkaasi laga bilaabay muddana ay socdeen ugu dambeyntii maleeshiyaadka hubeysnaa isiidooyinkii siyaasadeed iyo jahwareerka ka jira gobolka meel la dhigay waxaa loo jeestaa markaan xoreynta dalka gaar ahaan deegaanada Al-Shabaab ay joogaan in laga xoreeyo si dhinaca kale ee galbeedka gobolka Hiiraan ah dagaalka loogu sii wado waxaana hogaaminaya gudoomiyaha maamulka Hirshabelle ee gobolka Hiiraan Muuse Salaad Weheliye. saddex goob ama jiho ayay dagaal ka dhaceen meelaha qaarna waa furmo dagaal gudoomiyaha ayaana aagaas ku sugan halka lagu magacaabo Celeer oo hoos tagta degmada Halgan ee gobolka Hiiraan ayaa kamid ah halka uu dagaalka ka dhacay jihad dagaal ah ilaa haddana gudoomiyaha gobolka uu ku sugaya muddo dhowr maalmood isaga iyo saraakiil ciidan iyo mas'uuliyiin kale oo maamul goboleedka Hirshabelle ka tirsan gobolka Hiiraan qaabilsan jihooyinka kale ee dagaalka oo ay mas'uuliyiinta tageen ciidamadu ku dhiirigeliyeen ilaa haddana ay u dhow yihiin ama ay tagayaan waxa kamid ah deegaano lagu magacaabo Xalaali iyo sidoo kale Libiley oo gobolka Hiiraan labaduba ka tirsan. gudoomiyaha gobolka oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in haddii xal loo helo jahwareerkii gobolka ka taagnaa hadda reer Hiiraan ay u jihaysan doonaan sidii Al-Shabaab ay isaga xoreyn lahaayeen oo guud ahaan gobolkaas looga saari lahaa. Hirshabellena waxa uu sheegay inay ballan qaadayso sidii ay halgankaasi qayb uga noqon lahayd waliba ay furunta hore ee dagaalka u tagi lahayd si loo dhiirigeliyo dadweynaha. halka joognaa waa Xalaalaay oo ah aagga saddexaad aagga labaad ee cadawga lagu hor fadhiyo waxaan rajaynaynaa sida la socotaan maalmahan halkan waxa ka socday baacsi cadawga soo jireenka ah lagu baacsanayay shalay ugu dambaysa qorraxliiqiina halkan dagaal ka dhacay dhimasho dhaawac jiray aakhirkiina Ilaahay subhanahu wa ta'ala garabkooda ugu bixiyay nimanka cadawga ahaay si degdeg ah inagoo arintaas ka jawaabayno saraakiisha ciidamada qalabka sido iyo saraakiisha maxsuuliyadda iyo maamulka heer gobol iyo heer degmo waxaan ku soo gaarnay inaan halkaas duruufaha iyo xaaladaha ka jiro iyo aan la qaybsano dadka deegaanka siina laba jibaarno dardar gelino sidii cadawga foosha xun xeeriyada xun leh halkan yani ummadaan u geystay muddada fogba inta dhiman laga dhamaystiri lahaay waxaan rabnaa uga mahad celinaynaa ciidamada deegaanka oo isku xilqaamay welina u taagan inay cadawga iska dulqaadaan waxaan ku dhiirigelinaynaa inay laba jibaaraan waajibaadkooda shaqadooda waxaa nabadda iyo xasiloonida iyo dowladnimada iyo inay yani sharafkoodii karaamadooda ka dambaysaa dhiigooda gadaashooda ka dambaysa sidaas daraaddeed waxaan bilaabaynaa howlgal aan ugu magacdarnay dib u xurasho oo inta dhiman lagu dhamaystirayo gobolka Hiiraan cadawga meelaha yaryar u fusugay sidaas daraaddeed waxaan ku baadinaynaa ku dhiirigelinaynaa meel kasto aagaga ay kala joogaan haddii ay aan leedahay aagga Libiley haddii ay aan leedahay aagga Xalaalaay haddii ay aan leedahay aagga Jicibow dhammaantood dadka reer Hiiraan oo sharafta leh oo u diyaarsan inay iskaga xoreeyaan iskana dulqaadaan cadawgaas aagagaas inay isugu yimaadaan qof kasta oo muwaadina oo reer Hiiraan oo halkaas iska xaadiriyo midkii qori wata halkaas iska xaadiriyo midkii biyo ka dabageyn kara oo iska xaadiriyo gabdhuhu iska xaadiriyaan odayaashu iska xaadiriyaan dhalinyaradu iska xaadiriso waxaan rabnaa waxa la nin walba waxaad baratahay bariga loo baahan nin kasta waxaan rabnaa shaqada meesha u baahan inuu qabto qofkii biyo qasi karo qofkii risaas caawin karo qofkii hubka soo bixi karo qof dhinac kasta oo cadawgaas lagu baacsana waxaan rabnaa aagagaas aan noo cilaamsan insha Allah ta'ala xilli aan fogeyno waxaan rabnaa shabaab inuu webiga aan goysiinaan rabnaa markii aan webiga difaaca soo xirno waxaan rabnaa oo noogu xigto inaan ka tashanno dhanka galbeedka oo dad Soomaaliyeed oo walaalaheen ah muddo fog oo 20 sano cunugii ku dhashay oo ku qaan gaaray aan waxbarasho helin caafimaad helin biyo nadiif helin waxa aad adinku xaq u leedihiin muddadii dhaweed oo aad shabaab iska xoreyseen aad hesheen ama caafimaad leh ama biyo nadiif leh ama waxbarasho leh ama yani diil dawladnimo leh iyo u dhawaanshaha dadka deegaanka iyo dad loo dhaweeyo dawladnimada aad hesheen dadan helin aad jiro waxaan ka fikiri doonaa dadkaas loo gaarsiin lahaa adeegyada dawladeed xasiloonida gobolka Hiiraan siyaasad ahaan iyo ammaan ahaan
waxa ay muhiim u tahay guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan Hirshabelle gobolka Hiiraan dhinaca bariga waa meel kamid ah goobiyo oo ka bilowday dagaalkii ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab waxaana laga saaray degmooyin iyo deegaanado badan haddana waxay isku dayayaan inay dhanka webiga ka soo gudbaan iyagoo galbeedka ka imaanaya si ay dhibaato ugu geystaan bariga magaalada howlgalkana ujeedadiisa waa si halkaasi kooxda looga saari lahaa si kadibna galbeedka loogu gudbo guddaan gobolkaasina looga saaro sidoo sheegay gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Duwa Yuusuf Raagi iyo sidoo kale agaasimaya adanaba sugidda sirdoonka qaranka Cabdullaahi Maxamed Cali iyo wasiirka wasaaradda batroolka Soomaaliya Daahir Jire ayaa muddooyinkii la soo dhaaf waxay ku sugnaayeen gobolka Hiiraan iyagoo xal u raadinaya qulqulutooyinkii ammaanka iyo siyaasadda ee halkaas ka taagneed iyadoo haddana Hirshabelle markii uu nidaamka dawladnimada oo dib ugu soo laabtay gobolka Hiiraan ay bilowday in dagaalka Al-Shabaab dib loogu bilaabo goobihii oo markii hore ka socday kadibna loo dhaadhaco horumarinta gobolkaas hore ku soo kordha waxaan kugu soo gudbin doonaa wararkeena barnaamijyada dambe haddii Allah uu diro idmaadina aragtida qaybtood ay faaladana waree muuqaalkan si shirkaray aad u mahadsantahay